hay-adda wadooyinka dowladaha Puntland iyo shirkadda National ayaa maanta si rasmi ah u kala saxiixday heshiiska dib loogu dhisayo wadada Lafagorayo ee gobolka Gardafu. Jidkan la dhisayo oo baahi weyn loo qabo ayaa dhererkeedu u dhan yahay 26 kiiloomitir waxaana ku baxaysa lacag ka badan $600,000. miisaaniyadda ku baxaysa dhismaha wadadan ayaa waxaa bixinaya dowladda Puntland iyo shacabkeeda waxaana fulinaysa shirkadda National. wadadan oo wax badan ku soo kordhin doonta ganacsiga horumarka gobolka Gardafu ayaa dhanka kale ku xiraysa jidkan gobolada kale ee dowladda Puntland. mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda, wakiilada guddiga qaaran aruurinta dhismaha wadadan, shirkadda fulinaysa dhismaha wadada iyo qaybaha ummadda ee doorka ku lahaa guushan dib u dhisaysa jidkan ayaa ka qayb galay munaasabadan maanta lagu kala saxiixday in la dhiso wadada Lafagorayo. marka aad iyo aad bay dadkaas u dhibanaayeen walina hadda wadada saas u xuntahay. marka aad baan ugu faraxsanahay shaqada ma taqaana la soo xil saaray anigu markii halkan lacagta loo oranay Sheekh Maxamuud waa joogay jaamacadda maartay ka qayb qaatay baan ku jiray. haddana waxa muuqata haddana lacagta intaas oo dhan way hayeen dawladuna si aan maqashoonahay contribution fiican bay ku dartay waana aad bay yani waa u mahad celinayna anigu ka wakiila bulshada halka ku naqan deegaankaas anoo ku hadlaya magaca shirkadda National Engineering Construction waxaan insha Allah taala wadadaas Lafagorayo shirkaddu insha Allah taala u dhisi doontaa si tayo leh waxaana ku baraarugsan tahay shirkaddu xadiiska nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ila amil ahadukum amalan in haduu qofkiin amal sameeyo inuu sugo waa ceeb qof intuu shaqo qabtay ama loo xilsaaray in uu markaa wax ka soo laabtaan wadanka waxa lagu horumarin karaa isku tashi in wax la wada qabsado tanina waxay na tusaysaa inay arinta ka turjumayso sidoo kale dadweynaha deegaanka iyo shirkadda la siiyana waxaan u baaqaynaa inay arinta ka faa'iideystaan wadadan noqoto wado loo aayo horumarkeeda waqti ayna noqon maaragtay sidii hore waxa aan laga bedelo dardaaranku waa intaas waxaan kaloo inaan ka soo qayb galo
gudoomiyaha hay-adda BHA Cabdifataax Maxamed Sugule ayaa asna sheegay in iyagoo ka shidaal qaadanaya fahanka bulshada reer Puntland ay sida dhow ula socdeen dhibaatooyinkii wadadan iyo in ay xiran tahay ay dardargeliyeen isku dubaridka dib u dhiska jidkan. madaxweynaha dowladda Puntland ayuu sheegay in uu amray in la bilaabo isla markaasna ay qoondadan lacageed lagu bixiyo. mudanayaal haddaan ka warramo heshiiskan maanta aan u joogno halkan maanta waxaan u joognaa munaasabadda dayactirka saxiixa heshiiska dayactirka iyo dib u dhiska wadada la fagorayo. wadadan dadku aad bay ugu baraarugsan yihiin baraarug bulsho oo fiican baa ka jira in ay go'an tahay dayacan tahay aan u baahan wax laga qabto. haddaba annagoo ka duulina shaqadan oo ay bulshadu muddo hore u kacday suu shiikhu noo sheegay 2019 dhamaadkiisii shirkii u horeeyay loo qabtay dawladdu soo qaban qaabisay culumadii wax garadkii iyo bulshadiiba ay ka soo qayb galeen dhaqaalaha la aruuriyay kadibna la sii waday oo hawshii maaragtay ilaa kelmadeeda runtii waxa weeye inaan booriyo oo boogaadiyo runtii shaqadan la soo qabtay wasaaradda hawlaha guud iyo waxa weeye hay'adda wadooyinka iyo culimadu runtii door weyn bay ka soo qaateen ilaa maanta ay meeshan ay joogto aynu u joogno ilaa ay dhamaatana kama hadhano gudoomiyaha hay'adda wadooyinka iyo wasiirka hawlaha guud iyo dhammaan ciidii ka soo shaqeysay wadadani waxa weeye waxay u shaqeynayeen dadka deegaanka iyo dalkay u shaqeynayeen ilaa ay dhamaatana kama hadhano runtii waa sii dabagelanaa oo la shaqeynaa wixii hadda xaaladdu meesha marasana waa la socorana waxaan rabnaa isku tashiga quruxda badan ee Lafagoray sameysay inay kulli baanto oo ku najaxdo hadii Ilaahay ka dhigo. waxaan rabnaa dadka deegaanada kale runtii deegaanadeenu 90% waa bilaawad laamiyada dhaadheer waxa weeye gobolada isku xidha marka laga yimaado dadkeenu waxay ku nool yihiin darafyada iyo meelaha rafka u badan bay ku nool yihiin. waxaan rabnaa inay qudwo qurux badan noqoto oo la iskaga daydo oo deegaanadu isbuuciyada dhaweyta waxaan tagay magaalooyinka Ayl Bandarbayla isku shuban waa bilaawdooyin iyagu qudhoodo marka deegaanada qudhoodo inay kaga daydaan baan rajeynaa. dowladda Puntland oo hogaaminayo mudane Siciid Cabdullaahi Dani ayaa muddadii ay xukunka haysay waxa ay xoogga saartay dhisitaanka iyo dayactirka wadooyinka oo hormuud u ah kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkeenu ugu baahi badan yihiin. Nadar Garaase warbaahinta dowladda Garowe.